Madaxa sirdoonka militariga ee dalka Ukraine ayaa markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda dagaalada waddanka Ukraine tan iyo muddo 2 toddobaad ah oo uu ka aamusnaa howlgallada militariga iyo dagaalada ka socda gudaha waddankaasi Ukraine. Waxa uu sheegay in Ruushku uu doonayo in laba uu u kala qaybiyo dalka Ukraine si uu u sameeyo gobol uu isagu maamulo kadib markii uu ku guuldareystay in uu la wareego guud ahaan waddankaasi. Xaqiiqdu waa ay iska caddahay waxa ay doonaysaa in ay u kala qaybiso waddankaasi waqooyi iyo koonfur, ayaa uu yiri madaxa sirdoonka militariga ee dalka Ukraine oo ka hadlayay xiisadda iyo rabitaanka dowladda Russia kadib duulaan muddo in ka badan 1 bilood ka socda gudaha waddankaasi. Madaxa sirdoonka militariga dalka Ukraine ee la yiraahdo Budanov ayaa waxa uu hadalkaasi uu sheegay xilli dagaaladu ay sii xoogeysanayaan isla markaana Moscow ay sii laablaabtay dagaalada jiha kasta oo ka mid ah waddankaasi Ukraine. Waxaa sidoo kale uu sheegay in howlgalka ka socda gudaha waddankaasi uu noqon doono mid daba dheeraada maadaama Ukrainiyiintu aysan dooneynin inay isdhiibaan isla markaana ay dagaalka sii xoojin doonaan. Magaalada caasimadda ah ee Kiev ee dalka Ukraine ayaa ah halka bartilmaameedka koowaad u ah madaxweynaha dalka Russia oo uu doonayo in uu la wareego. Hadalka madaxa sirdoonka militariga ee dowladda Ukraine ayaa waxa uu imaanayaa xilli xiisadda ka jirta meel 20 kiiloomitir u jirta caasimadda waddanka Ukraine ee Kiev ay aad u sii xoogeysanayso. Jihada iyo istiraatiijiyadda dagaalka ee dowladda Russia ayaa la bedelay, waxaana la doonayaa sida uu hadalka u dhigay madaxa sirdoonka militariga waddankaasi in ay xooga ugu badan ay geliyaan sidii ay ula wareegi lahaayeen caasimadda Kiev ee dalka Ukraine. Waxaa sidoo kale aad u sii xoogeysanaya duqeymaha ka socda meel badan oo ka mid ah koonfurta iyo bariga waddankaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyay dowladaha reer galbeedka in dalkiisu ay soo gaarsiiyaan diyaarado, taangiyo iyo hubka difaaca gantaalada. Zelensky ayaa ka cawday in diyaaradaha Ruushka aan lagu soo ridi karin qoryaha darandooriga u dhaca ee ay adeegsanayaan ciidamada dalkiisa ee Ukraine. Ra'iisul wasaaraha dalka Slovakia ninka la yiraahdo Edward Heger ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay in uu u diro hubkiisa difaaca gantaalada hawada ee loo yaqaano S-300 ee Soofiyeedka uu sameeyay haddii beddelkiisa la heli karo. Waxaa sidoo kale horey dowladda Poland ay u sheegtay iyana in diyaarado ay ku caawinayso, laakiin Mareykanka ayaa hor istaagay isagoona ka cabsi qaba in Mareykanka loo arko in dalalka NATO uu lugaha u sii gelinayo dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. Laakiin Russia mar walba waa ay ka feejigan tahay in dalal kale iyo weliba dowlado ama ururo ay ku soo biiraan dagaalka, iyadoona sheegtay in dagaalka uu weji kale u yeelan doono haddii dowladahaasi ay isku dayaan in ay hub ama gudaha u soo galaan. Kol hore dowladda Mareykanka ayaa u digtay Russia isla markaana waxa ay sheegtay haddii Russia ay hub ka soo hesho ama hub deeq ah uu uga yimaado xagga dowladda China intaasi ay noqon doonto mid ay ka jawaabaan isla markaana ay cunaqabateena adag ay saaraan dowladda Shiinaha. Waxaa toddobaadyo ka hor soo shaabaxay in Ruushka uu saanad militari iyo hub uu ka dalbaday dhigiisa dalka China, laakiin Mareykanka ayaa arintaasi aad ugu walwalay. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa lagu eedeeyay in uu uga sii darayo xaaladda dagaalada ka jira waddanka Ukraine. Hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ee uu hawada u mariyay dhigiisa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, kaas oo ahaa in Putin uusan sii ahaan karin xukunka ama uusan sii hayn karin xukunka dalka Russia, ayaa dhalisay dhaleeceyn xoogan oo uga timid diblomaasi Mareykan ah oo rugcadda ah kaas oo lagu magacaabo Richard Haass. Waxa uu sheegay in hadallada madaxweynaha dalka Mareykanka
Joe Biden ay xaaladda uga sii darayso isla markaana khatar abuurayso. Sidoo kale bartiisa Twitter-ka ayaa waxa uu ku soo qoray Mr. Haas oo ah madaxa golaha xidhiidhka dibadda ee Mareykanka in Joe Biden looga baahan yahay inuu ka taxadaro hadallada adag ee uu jeedinayo. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa hadalkaasi sidoo kale dhaleeceeyay qaar ka mid ah saaxiibada Mareykanka ee sida dhow ula socda xiisadda dagaalka ka jira dalka Ukraine. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday in ay kordhinayso caawimaadda military ee ay siinayso dowladda Ukraine sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kadib markii uu Poland uu kula kulmay madaxweyne Joe Biden. ma jiro wadan kale oo aan ka ahayn caawimaad ama ma jirto wadan kale oo aan ka helnay caawimaad kadib tan iyo markii uu bilowday dagaalka. kadib tan uuna siiyey Mareykanka waa mid aad u muhiimsan. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in saanadaasi ay noqon doonto mid ka mid ah kuwa ugu xoogan ee la siin doono dowladda Ukraine oo dagaal xoogan hadda kula jirta dalka Russia. geesinimada reer Ukraine iyo hubka reer galbeedka oo intiisa badan uu nooga imaanayo Mareykanka ayaa horseeday guul aan ka soo hoynay goobaha dagaalka ayaa uu sii raaciyay. ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan nooca uu yahay gargaarka military ee ay ka heli doonaan Mareykanka, balse waxa uu yiri maanta waxa aan ballamo dheeri ah aynu ka helnay Mareykanka kuwaas oo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta ku aadan dhinaca difaaca. dowladda Mareykanka ayaa ballanqaadkaasi ah inay kordhinayso caawimaadda military ee ay siinayso Ukraine. waxaa sidoo kale la filayaa inay ka soo jawaabaan dowladda Russia taas oo maalmihii lasoo dhaafayba aad ay uga jawaabaysay hadallada ka yimaada reer galbeedka iyo xubnaha NATO ee iyaga ka hadlaya xaaladda dagaalada ka jira dalka Ukraine. dhinaca kale madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyay wadamada khaliijka carabta inay sare u qaadaan wax soo saarkooda gaaska dabiiciga ah si ay Ruushka uga hor istaagaan in uu tamar u adeegsado hub ahaan. Mr. Zelensky ayaa shirka Doha Forum muuqaal uu uga qaybgalay ku sheegay in mustaqbalka Yurub uu ku xiran yahay dalalka ay wadamada khaliijka ay ka mid yihiin kuwaas oo Russia haddii la doonayo in la cunaqabateeyo ay iyagu joojiyaan ama iyagu aysan lugaha la soo gelin. Mr. Zelensky ayaa waxa uu sheegay in khaliijka inay sare u qaadaan wax soo saarka gaaska dabiiciga ah ay tahay arrin muhiim u ah badqabka iyo nolosha galbeedka. goor sii horeysay ayuu Ruushka uu ka codsaday in ay wada xaajood nabadeed oo dhab ah ay la galaan kadib markii sida uu sheegay ay militariga Moscow ay la kulmeen guuldarooyin waaweyn oo dagaalka ka soo gaaray. Mr. Zelensky ayaa sheegay in ciidamada Ukraine ay khasaaro culus ay gaarsiiyeen militariga Ruushka ayna dileen taliyaal sarsare oo ka tirsan ciidamada dowladda Russia. waxa uu sheegay in wadamada ay qasab tahay in natiijadooda ay noqoto sidii Ukraine ay xor uga noqon lahayd duulaanka. hase ahaatee ma jiraan wax astaan ah oo muujinaysa in Ruushku ay shuruud la'aan ama shuruudaasi ay aqbali doonaan. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku booriyay wadamada khaliijka carabta inay sare u qaadaan wax soo saarkooda gaaska dabiiciga si ay Ruushka uga hor istaagaan in uu tamar u adeegsado hub ahaan. xaaladda iyo dagaalada ka jira dalka Ukraine ayaa ah kuwa sii xoogaysanaya waxaana walwalka uu yahay mid sii kordhaya. dhinac kale sida aan ku sheegnay warbixinteenii tan ka horeysay madaxweynaha wadanka Mareykanka ayaa jooga ama booqday wadan daris la ah dalka Ukraine halkaas oo dagaalo xoog badan iyo duqeymo uu ka wado madaxweynaha dalka Russia dowladiisa. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la kulmay dhigiisa wadanka Poland isagoona maalintii saddexaad booqasho ku joogay wadankaasi Poland. Mr. Biden ayaa sidoo kale waxa uu la kulmay qaxootigii ka soo cararay dagaalada ka jira dalka Ukraine waxaana
labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimo ku saabsan ballanqaadkii hore ee madaxweynaha dalka Poland uu u sameeyey ee ahaa in Ukraine loo gacan geliyo diyaaradaha dagaalka, laakiin madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in uu si aad ah ugu baahan yahay diyaaradahaasi, balse Mareykanka ayaa hor istaagay gudbinta arrintaasi isagoona ka baqaya in tallaabadaasi ay dagaalka lugaha u soo geliso howlgalka NATO ee iyagoo bannaanka ka jooga dagaalada ka jira wadankaasi. Dhinaca kale, kaaliyaha xogayaha guud ee qorsheynta difaaca iyo siyaasadda ee NATO, mas-uulka la yiraahdo Patrick Tanner, ayaa sheegay in ka jawaabista duulaanka Ruushka ee Ukraine ay muujinayso heer aan caadiga ahayn ee midnimada caalamiga ah iyo dalalka sida ay ugu midoobeen. Waxay muujinaysaa awoodda dunida isku xiran, ayaa uu yiri, oo aan fariin gaar ah u yeelanay qiyamka oo muujiyay in aan diyaar u nahay inaan qiimo buuxa aynu siino qiyamka aynu wadaagno, ayaa uu yiri isaga oo ka hadlayay madal ay isugu yimaadeen dalal badan oo ka furantay magaalada Doha ee dalka Qatar. Sarkaalka NATO ayaa intaasi ku daray, NATO ma ahan isbahaysi ka dhan ah cidna kuma nihi weerar, ayaa uu yiri. Ma jirto ujeedo lagu handado cidna, ma lihin in aan cidi ku duuli karno. Waxaa naga go-an inaan ka hortagno weerarada lagu hayo xulafadeena, waxaana naga go-an buu yiri inaan isdifaacno haddii aynu la kulanno weeraro. Shirkan Doha ka furmay oo sidoo kale uu ka qaybgalay madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky oo muuqaal ahaan uga qaybgalayay, ayaa sidoo kale waxaa aad diiradda loogu saaray ama gebi ahaanba shirkaasi saameyn ku yeeshay dagaalka wadanka Ukraine. Kaaliyahan xogayaha guud ee qorsheynta difaaca iyo siyaasadda ee NATO, Patrick Tanner, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ajandaha iyo qorshayaasha howlgalka NATO uusan ahayn in duulaan la qaado ama cid khatar lagu noqdo, isagoona sheegay in NATO ay ka go-an tahay in ay ka hortagaan weerarada lagu hayo xulafada NATO, islamarkaana ay isdifaacayaan haddii ay khatar ay la kulmaan. Hadalkaas ayaa siyaasiyiintu waxa ay u fasireen inay tahay in NATO ay weli ka maagmaagayso in dagaalka ka socda wadankaasi ay lugaha la gasho. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa u muuqday mid ka digaya in Putin lagu calaamadeeyo hadallo xanaf ah, taas oo uu sheegay inay xaaladda uga sii dari karto. Ma isticmaali doono ereyada caynkaasi ah oo sababi kara wada hadallada inay burburaan, islamarkaana ay xiisadda uga sii darto, maxaa yeelay waxa aan weli wada hadallo aan kula jirnaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Macron ayaa waxa uu hadalkaasi uu sheegay mar uu wareysi uu siinayay janalka Faransiiska ee la yiraahdo France 3. Arrintan ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden uu dhaleeceyn xoogan uu u jeediyay hogaamiyaha dalka Ruushka xilli uu Sabtidii magaalada Warsaw ee dalka Poland uu kulan kula qaadanayay qaar ka mid ah qaxootigii ka soo cararay dagaalada wadanka Ukraine. Kadib markii hore waxa uu sheegay in loo baahan yahay in madaxweynaha dalka Russia aanu ahayn nin qaadi kara mas-uuliyad, isla markaana loo baahan yahay inuu ka noqdo hadallada adag ee uu warbaahinta u mariyay. Hadalka madaxweynaha Mareykanka ee carada badan ka dhaliyay qaar ka mid ah hogaamiyaasha dhexdooda ee Putin uu hawada u mariyay dhigiisa waxa uu ahaa in uu yiri Putin inuusan sii hayn karin xukunka dalka Russia, ayna dhalisay taas dhaleeceyn xoogan oo ka timid diblomaasiyiin Mareykan ah, madaxweyneyaal iyo weliba hogaamiyaal aad ugu xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo dagaalada ka jira wadankaasi Ukraine. Xaaladda wadanka Ukraine ayaa aad u sii cakiran, iyadoo sidoo kale la sheegayo in ay sii kordhayaan dadaalada nabadda lagu raadinayo oo Turkiga uu hormuudka ka yahay, laakiin dadaaladaas oo dhan ayaa u muuqda kuwa miro dhali waayay, maadaama markii ugu horeysay ay isku arkeen hogaamiyaal ka socday ama wakiilo ka kala socday labada wadan, dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Antalya, halkaas oo markii ugu horeysay ay meel dhexdhexaad ah ay ku kulmaan.
dhinaca kale Mareykanka ma hayo istaraatiijiyad uu ku bedelo nidaamka Ruushka. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa u sheegay saxaafadda kadib markii madaxweyne Biden uu sheegay in Putin uusan sii hayn karin awoodda ama talada wadankaasi. Waxaan u maleynayaa buu yiri in madaxweynaha aqalka cad u dhigay qodobkii xalay ee sheegayay buu yiri in madaxweynaha dalkaasi aanu hayn karin xukunka. madaxweyne Putin ma awoodi doono in uu xukunka wadankaasi uu sii hayo ayaa uu sii raaciyay. Waxaan u maleynayaa buu yiri madaxweynaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa farta ku fiiqay in aan halka aanu ku jirin in la dhibaateeyo wadan aan ku jirin ama wadan aan caqabad ku ahayn wadan kale. sida aad ogtihiin buu yiri, sida aad maqasheen isdaba joog weeraro ayaa ka dhacay, isla markaana ma jiro wax istaraatiijiyad ah oo la bedeli karo. Mareykanka ma hayo buu sii raaciyay istaraatiijiyad uu doonayo inuu ku bedelo nidaamka Russia, mana hayo fikrad iyo talo intaba. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa hadalkaasi sheegay. Blinken waxa uu hadalkaasi u jeediyay xilli magaalada Jerusalem ee dhulka Israel ay maamusho uu booqanayay. Quwadaha dunida ayaa weli waxay ka meermeerayaan in ay howlgal military ay ku garab istaagaan dowladda wadanka Ukraine, halkaas oo ay dowladdu ay dhowr jeer ay ku dalbatay in caawimaad military iyo kaalmo iyo diyaarado lala soo gaaro. ugu dambeyntiina 30,000 oo ka mid ah qaxootiga dalka Ukraine ka soo cararay ayaa soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee dalka Faransa, waxaana ay sidoo kale ay dalbanayeen in la siiyo hoy, cunto iyo meel ay seexdaan. Mas'uul la yiraahdo Emmanuel Worgon oo ka mid ah madaxda ama ah wasiirka guryeenta ee dalka Faransa ayaa u sheegay warbaahinta gudaha wadankaasi in 100,000 oo ka soo cararay dagaalada ay u diyaariyeen goobihii ay seexan lahaayeen. Dowladda Faransiiska ayaa kol hore waxa ay sheegtay in ay diyaarisay inay qaabisho qaxootiga ka soo cararaya dagaalada wadankaasi. Dagaalada ayaa waxaa ka cararay 2 milyan, waxaana dadkaasi qaarkood ay ka gudbeen xuduudaha, inkastoo Mareykanka kol hore uu sheegay in uu diyaariyay inuu qaato 100,000 oo ka mid ah qaxootigii ka soo cararay dagaalada ka jira wadankaasi Ukraine. dhinaca kale, ugu dambeyn haddii aynu sii raacino, dowladda wadanka Russia ayaa sheegtay inay burburisay xarun shidaal iyo kaydka cunto oo ku yaala wadankaasi. Ruushka ayaa waxaa la sheegay in uu bilaabay inuu burburiyo xarumaha kaydka shidaalka iyo cuntada ee wadankaasi uu leeyahay kadib markii Russia ay bedeshay istaraatiijiyadda dagaalka, isla markaana ay laabtay duqeymaha ay ka geysanayso gudaha dalkaasi. Isaga oo la hadlayay warbaahinta, sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Russia waxa uu sheegay in xoogagooda ay kordhiyeen duqeymaha ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi xilli ay sii kordhiyaan baaqyada loo jeedinayo dowladda Russia ee ku aadan in aan la burburin goobaha danta guud ee shacabka ay leeyihiin iyo goobaha kale ee dowladdu aanay maamulin. Hadalkan ayaa sidoo kale waxa uu imanayaa xilli maalin ka hor la sheegay in caruur ka badan 130 ay ku dhinteen duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee Russia tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada ka jira iyo duulaanka Russia uu ku soo galay wadankaasi. Guud ahaan daawadayaal, waxa aan halkaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii aynu ku eegaynay warbixinadii ugu dambeeyay dagaalada ka jira wadanka Ukraine oo aan si maalinle ah aynu u soo gelino channelkeena Garmaal. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe inoo saar, maxaa yeelay maalin walba waxa aad heli doontaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka jira wadanka Ukraine, halkaas oo dagaalada ka socda ay galeen muddo bil ka badan, waxaana kordhaya baaqyada caalamiga ah ee loo jeedinayo dhinacyada, gaar ahaan labada dowladood ee Ukraine iyo Ruush oo ku aadan in dagaalka ka socda halkaasi la joojiyo. Waxaana sidoo kale kordhaya cabashada ka soo yeeraysa shacabka labada wadan oo dalbanaya in xiisadaha lagu kordhiyo ama xiisadaha lagu soo gabagabeeyo wadahadal iyo weliba in dowladuhu ay isqaataan. Fadlan subscribe inoo saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena.